Naciima Abwaan Qorane oo ah haweeney halabuura oo hore maxkamadda gobolka Maroodi Jeexay ugu xukuntay muddo 3 sano oo xadhiga kadib markii lagu eedeeyay falal ka dhana Somaliland ayaa madaxweynaha Somaliland uu cafis u fidiyay waxaana laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Gibiley isla maanta Naciima maanta xabsiga Gibiley laga soo daayay runtii waxaana aad uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo taliska xabsiga Gibiley iyo runtii taliska ciidanka asluubta ururada xuquuqul insaanka qaranadii kala difaacayay warbaahinta madaxa banaan iyo runtii cid kasto af iyo adinba kaga qayb qaadatay sidii ay Abwaan Naciima Axmed Ibrahim u heli lahayd xorriyadeeda marka maanta ma sha Allah intii waxay shifeynay xorriyadeedii dhinaca kale Axmed Qorane aabaha dhalay Naciima Qorane oo isaguna warfidiye kala hadlay waxa uu uga mahadnaqay dhammaanba cid kasta oo dadaal ka gashay sii deynta inantiisa horta ilaahay baa mahad leh ilaaha maaragtay subxaanahu wa tacaala deynantayda intuu xabsi geliyay oo 3 bilood iyo bar ku xidhnayd maantana xorriyadeedii u soo celiyay ilaahay baa mahad leh hore mahad ilaahay baa iska leh arintuna waxay ku timiday waa qadarka Alle waxana way qadareed waxay hees baa oran jirtay waa maadiisa dunida dadkuna way matalayaan marka horta ilaahay baa qadarka waxan xukumay bini aadmiguna ficilku bay fulinayaan oo ilaahay baa u diraya taas wata marka ilaahay baan u mahadnaqayaa kolka hore mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa arinta inanta soo deynteeda min maalintii la xiray ilaa maanta ciddii ka qayb qaadatay soo deynteeda xorriyadeeda inay dib u hesho madax iyo mijaba meel uu joogaba waa u mahad celinayaa